عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلامني دمان مسلمين تمركز جوكتان waxaan idin leenahay soo dhawaada kusoo dhawaada youtube keena waxaan u malaynayaa xogay baryaan kala maqnayn oo isku soo laabanay maanta waxaan idin wadnaa sida aad ciwaankaba ku aragteen wax cusub waxaan soo daynaynaa maanta yamaanina wadaagaynaa kadib baaris aan sameynay yacni research after research ya afaan Soomaali Yes. marka horta soo dhawaada aniga magacayga waa Maxamed Cumar Tiiriye Abbath ninkaana waa Yusuf taqaan Sheikh Mohamed Noor ay maanta maxaan ka hadli rabnaa waxaa inoo diyaarsan the best YouTubers in Somalia shanta YouTuber ee waansan una anshax wanaagsan una qiimaha iyo qadarinta wanaagsan waa shan YouTuber oo Soomaaliyeed waxaa inoo soo gudbin doona walaalkeena faa'iidaysi waa qofka aan idiin soo gudbinayna waxaan ku qiimeynaynaa waxa waayo koow waa dhaqankiisa ama hab dhaqanka siduu dadka ula waa inuu macaamilo. ahaadaa qof Yani, dhaqan wanaagsan ayaan ka leenahay ma aha qof reactionada iyo gabdhaheena Soomaaliyeed ku mashquula tan labaad aan ku qiimeynayna waxa waayo waa inuu yahay yani qof soo gudbinaya wax qurux badan ama si kale hadaan u dhahno waxa labaad aan ku qiimeynayno waa wuxuu soo gudbinayo waxyaabaha ay dadka ka faa'iideystaan kaalinta shanaad qofka ku jira waa Yislam waa wiil da'yar wuxuu ku nool yahay malaynaa dalka Norway iskuma dhihin qofkaas Yislam waxyaabo badana qiimeyn markaan ku sameynay dhaqankiisa iyo waxyaabo uu soo gudbiyo ninkaas wuxuu soo gudbiyaa ajaa'ibta ama dhacdooyinka caalamka dhacdii hadda ugu dambeysay waxay ahayd nin wiil YouTuber oo isdilay yani badanaa wuxuu ka hadlayo sideen u fahmay waa wax history dhacdooyin ama dhacda yani hore hore u dhacday. xaqiiqo waa haysa sidoo kale ama fiidiyoyaashiisii hore marka la dhaho wuxuu ka hadlaa oo ka hadli jiray hadda badanaa inkastoo u badan yahay waxyaabahan dhacdooyinka ama la yaabka dunida waxa la dhaho oo ama horey ha u dhacda ama hadda ha dhacdaba markii hore wuxuu ka hadli jiray barnaamijyada teknolojiyadda oo ka hadli jiray ha ahaato wax ku saabsan dhinaca developmentiga ama horumarka teknolojiyadda teknolojiyada ha ahaato waxyaabahan kale social media qaybahooda la isticmaalo dhinaca youtube-ka oo kale haddaa rabto waxyaabo badan inaad ku ogaato waana kana linkigiisa ama ciwaanka oo kusoo galo si waa YouTube-ka. dhammaystiran waa kana meesha kaaga muuqda qofka labaad qofka ku jira kaalinta afraad wuxuu noqon doonaa waa arrimaheena yes arrimaheena yusuf arrimaheena horta waxaa laga yaabaa inay isleeyihiin arrimaheena subscribe-kiisa aada u badan yahay Yislamna waa hooseeya 98 meelahaas inuu maray umalaynaa qiimeynta badanaa waxa yani aan ka hadlaynaa anaka wey sida aan hore idinkugu sheegnaba waxay u badan tahay yani qofkan wuxuu soo gudbinayo waa yani waxa uu la wadaagayo bulshada iyo dhaqanka ama dabciga mucaamalka u dhaxeeya isaga iyo bulshada arrimaheena wuxuu ka hadlaa wax loo yaqaano social experience-ga dadka khibradaha badanaa wuxuu soo gudbiyaa waxyaabo nolosha dadka markaas ka hadlayo qofka saddexaad yaa waa isleedahay qofka ku jira kaalinta kaalinta saddexaad saddexaad waa nin loo yaqaano ogaansho waa nin aada Soomaalidu aada ay u fahamsan tahay wuxuu soo gudbiyaa jugraafiga caalamka dhacdooyinka sida jimaca oo kale wuxuu soo gudbiyaa wararka aan siyaasadda oo dhan aan ku salaysanayn sidoo kale ninkaas dad uu dhiirigeliya ani ahaantay qofkaas mar badan dhiirigelintiis waan ka faa'iidaystay aan leeyahay horay u soco ogaansho ninkaas kanalkiisa ogaansho maalintan soo galay YouTube-kiisa hadda maanta wuxuu maraya 200 iyo dhowr subscribe oo 1000 subscribe xilligaas wuxuu marayay 37,000 waxaa u malaynaysaa marka inay Soomaalida aad ay u xiiseeyaan waxyaabo uu soo gudbiyo qofkaas yes ha waa la socdaan
annakaba Ani micnaheedu ahaan- ma ahan inaan inta iska aragnay aan yacni aan iskuma soo dhihin waa gudbinay lasoo research iyo baxthi marka la sameeyo waa aad iyo aad waa waxaan yacni aan qiimeyn badan ku sameynay waayo Okay. qofka waxaad ka dareemi kartaan fiidiyoyaashiisa iyo asaga sida uu ugu heelan yahay dadka inuu wax usoo gudbiyo okay waqtiga waa aad ku yar awgii qofka ku xiga qofka ku jira kaalinta labaad yes kaalinta labaad kaalinta labaad waxaa waa waxaa noo dhiman laba qof oo keliya sahanka hogaha aad iyo waa aad wiil aad u daayar isla markaasna ku nool dalkeena Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Togdheer ee caasimadiisa Buro bal faahfaahin ka sii dadka aad iyo aad wallaahi waa aad baan ugu xidhanahay marka la dhaho sahanka xogaha wuxuu ka hadlaa asiga ruuxiisa laba ciwaana ugu waaweyn horta kow dhiirigelin labo waa nin leh aqoon ama cilmi aqoonyahan da'yar waa ninkaas nin aad iyo ama aad iyo aad wuxuu inaan ka qoraa yaabo buugaag turjumaadoo sameeya timaadu buugaag aad sameeya badan yes marka labadaas ciwaana sahanka ugu hogaha waaweyn waxaan leenahay hore u soo horay u saaxiibsaday saaxiibsan ninkaas taariikh yar aan ka sheekeeyo ay isna sidoo kale ani horta dadka subscribe dadka kuma haysta kow dhaha markaan soo galay YouTube-kiisa wuxuu maray subscribe-kiisa 22,000 subscribe 22 hataa inuu ka hooseyso oo malaynaa 8,000 meelahaas inay ahayd maanta wuxuu maray 80 iyo dhowr 3,000 oo subscribe ah intaas oo dhan ma daalin soo aad iyo aad waxaan maraynaa qofkii ugu dambeeyey waa qofka ku jira the last person kaalinta koowaad kaalinta koowaad aad iyo aad iskuma dhihin ogow iyo noqon waa doonaa lasoo saleeyay waa lasoo akhriyay waa lasoo research baadka lasoo sameeyay la iskuma dhihin waxa ku jira Horta- kaalinta koowaad aniga ahaantayda markaan inta aan sheegin qofka kaalinta koowaad hor ma sheegna ma sheegna dadkan aniga Waay, wada sugayaan. waa yaqaanaan saani ku yaqaanaan laga yaabo laakiin qaar inay maya aniga ahaantayda waxaan u malaynaa qof walba inuu yaqaano ugu yaraan haddaadan magaciisa arkin laba video ama Waad saddex ka video daawatay. leedahay waad ka daawatay qofkaas yes aad iyo aad waa waa kaalinta koowaad ayuub Yusuf Sakiin maasha allah waa waa dhiirigeliyaha dhiirigeliyaha ugu weyn Soomaalida. ugu weyn waa qofka aan dhihin karna maantay wuxuu taalanti ama hibo u leeyahay in uu noloshaada adigana daawanaya inuu wax ka bedelo wax ka bedel Aad iyo aad. runtii tayda wax ka bedel waa arkaba aad iyo aad wallahi maalintii aan masha arkay ninkaas ilaa maanta wallahi wax badan oo iska kee bedelay saan maaha wax badan oo iska kee bedelay horta ereyga Aan leeyahay. dhiirigelin yusufu ha ereyga dhiirigelinta marka la dhaho qofku wuxuu u maleeyaa hal ciwaan oo kale laakiin ogow asaga wuxuu ku kala fahansiinaa dhiirigelin maxay tahay dhinaca waxbarashada inuu kaa dhiirigeliyo waalidiinta xiriirka u dhexeeyo kaalinta koowaad kaalinta koowaad saad ku geli soo adinku waad arki doontiin waana kana magaca magaciisa, youtube-kiisa YouTube-kiisa. sida hadda halkan shaashada idinkaga muuqato waqtiga oo aad ku yar awgii waxaan soo gabagabeynaynaa barnaamijkii aan kusoo hulnay 5 youtuber ee ugu sareysay dhanka dhiirigelinta iyo waxyaabaha ay soo gudbiyaan iyo dhaqankooda markaan fiirinay 5taas youtuber ayaan kusoo hulnay dadka Soomaaliyeed aad iyo guud aad ahaan waan leeyahay dadka Soomaaliyeed si gaar ah barnaamijku waa inoo soo socon doonaa waa barnaamij socon doona qaybta labaad waxaan kusoo qaadan doonaa qaybta waxyaabaha ay soo gudbiyaan sida culimada oo kale يعني بلوش. اوكي فيديوغا xig wuxuu noo noqon doonaa shanta yani ka tirsan culimada Soomaalida diinteena islaamka يعني aad iyo aad oo yani ma dhahayno horta culimo dhaqan xun ma jirto laakiin ma jirto. waxaan u qiimeyn doonaa ayaga ruuxooda qaabka xiriirka shacbiyada intaas un baan saleynaynaa ayaan qiimeyn doonaa yes marka haddaad ku cusub tahay kanalka waxaan ka codsanaynaa inaad videogan like iyo share sii dhahdo haddii aad ka heshay aad la wadaagta asxaabtaada dadka Soomaaliyeed kasoo dhawaada okay barnaamijkii aan ugu talagalnay meeshaas ayuu Norway amaan Allah bye bye